السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلتي دنبا oo xiiso la soo dhawaada walaalaha qiimaha iyo qaayaha leh ku taxan YouTube-keena Nuuruddin Wadani. maanta waxaan nahaynaa qiso runtii aad u cajiib ah. aan rajaynayaa inay runtii qalbigaaga si badan wax badan ay dareensiin doonto, kuna tusi doonto awoodda rabbaaniga ah ee Ilaahay dunidan wuxuu doono iyo sidoo doono uu isticmaalayo. waxa dhaxday waqtiyada kamid ah hooyo ayaa ahayd hooyo uur ah, kadibna maxaa la dhahaa safar iyo sabcaal dheer ayay duruuf iyo dan ku kaliftayba ay u soo qaansharatay oo u soo cagadeysatay. kadib maamadii ayaa soo safartay, waqti dheer ayay soo socotay, wada waxay ku soo hagaagtay bahgooyo ah oo bini aadamna uusan ku noolayn marina maxaa la dhahaa waraabaha iyo maxaa la dhahaa sabcaalada dhaadheer iyo wufuudda dhaadheer ee dagaalada u baxaysa oo kaliya ay maraan. kadib maamada hooyadu uurka ka sokow waxay ahayd maamo ama hooyo taagan waqtigii maxaa la dhahaa ay umuli lahayd ama ay dumarku ay ku muli jireen 9 bilood iyo sida caadada ahayd. hooyadii oo sabcaalkeedii dheereed ku jirta ama safarkeedii dheereed ku jirta ayaa waxa qabatay fool, iyada oo kolkay horeba nafteeda ka dayrinaysa laga dayrinayay si xad dhaaf ah oo aan haysanin biyo baad iyo waxay bini aadamku ay jidintaan ama ku noolaadaan. kadib safarkeedii dheeraa kadibna waraaba cabsi iyo waraaba cunana oo halis ahayd ayaa waxa waqti ay aad nafteedu halis ugu jirta ayaa waxay dareentay fool. kadib fooshi markii ay dareentay waxa ay iska miciinsatay, maadaama ay hooyo muslimada ahayd waxay miciinsatay Allah subhanahu wa ta'ala. kadibna rabbi bay iska tawakushay, meel cidla ayay ku umushay, iyadoo nafteeda iyo ilma cunug ay dhashay sida la sheegay. kadibna iyada oo nafteedii iyo cunugeedii walbahaar iyo walwal meel la qaban la ayaa waxay dareentay ayaa Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu soo diray malakul mawt oo ku yiri malakul mawdow kaco islaanta meesha cidlada ataala ka soo qaad nafta sida qisada ku qoran. kadibna malakul mawd ayaa arkay xaajadii maxaa la dhahaa ama arrinkii qoftii maxaa la dhahaa umusha ahayd meesha cidlasanideeda bahgooyisanideeda biyo la'aanteeda iyo baad la'aanteeda iyo si hadii uu nafta ilmaha islaantan sakaraadka ee duruufaysan uu ka soo qaado aynan cid u birmanaysa ilmaha yar aysan jirin, isaguna uu yahay mayeedhaan aan codkiisa xitaa cidda agtiisa maraysa xitaa uusan ugu gudbin karin ilaa Allahumma qof soo dhax qaado oo indhihiisa ku arka mooyeen. kadib malakul mawt ayaa sida la sheegay Allah qisada ku xusan Allah oo la laabtay oo yiri yaa rabbi ilaahayow waa qof duruufaysan noocan ay u egtahay sabcaal dheer ay ku jirtaa ama safar dheer ay ku jirtaa, ilaahayow ka xariistaada weyn ilaaha u fidi. iyada ayaaba hadiiba maxaa la dhahaa aabadayso aan laga yaabo inaysan badbaadin oo ay duruuf iyo baahi la dhimatay, ilaahayow iska maxaa la dhahaa u yar dibdhig. kadibna wuxuu ku yiri amarka qaado, sida aan ku yeelayna sida aan ku amrayna yeel, aniga ayaa samaysay, aniga ayaa hadana nafta ka soo qaadanaya, saan doonana waa aan yeelayaa. kadib malakul mawt jid kale uma banaano oo tabcan amarka Ilaahay subhanahu wa ta'ala inuu qaato oo kaliya ayaa u banaan. kadibna nafta ayuu ka soo qaaday, ilmahana meesha kaga imaayay la yiri, ilmihiina meesha ayuu kaga imaaday sida qisada lagu sheego. Allahu a'lam. kulli aniga maxaa la dhahaa si dhab ah runtii qisada uma dul istaagin, laakiin waa qiso qoran oo waxyaabo meel badan lagu soo tabiyo. kadib waxa dhacday ninkii wuxuu sameeyay naftii malakul mawtka ka soo qaaday, ilmihii yaraana halka ayuu kaga soo dhaqaaqay. kadib isaga oo maxaa la dhahaa hada ka murugooday oo kolkii horeba sida cadeyntiisa hore ama fariintiisa hore ka muuqata. kadib waqti dambe oo waqtiyada kamid ah ayaa Allah subhanahu wa ta'ala malakul mawt wuxuu amray in uu maxaa la dhahaa nin caalim ah oo sheekh ah oo rabbaani ah oo diinta islaamka dadka intaas oo kun oo qof maalinkiiba maxaa la dhahaa baraya, intaas oo kitaab baraya ayaa malakul mawt waxa la amray inuu nafta ka soo qaado waqti dambe sanawaad dheer. kadib Allah ayuu ula ashtakooday oo sida qisada ku qoran wuxuu ku dhahay yaa rabbi ilaahayow ninkani waa nin caalim ah, waa nin rabbaani ah, waa nin taqi ah, waa nin cabsidaadu ay ku dheer tahay, ummadda ilaahayna anfacaya oo khalqiga ilaahay dulmigooda kala badbaadinaya oo kala saaraya oo maxaa la dhahaa xaakim ah oo ummadda dhan kala badbaadinaya, cilmigana baraya, wadada toosan ku hagaya, wadada khaldan ka leexinaya. ilaahayow u naxariiso oo u yarkaadi diinta yar bare. kadibna wuxuu ku yiri ma xasuusataa waqtiyada kamid ah maama meel cidla taale ama hooyo meel cidla taale oo ku yiri ka soo qaad nafta oo ilmo yar oo sabi ah haysatay, ma xasuusataa? kadibna wuxuu ku yiri yaa rabbi haa, ilmihii meesha cidlada aad kaga soo tagtay ee bahgooyada ahayd ee oomanaha ahayd ee rafaadka ahayd, ilmihii weeye ninkan caalimkaad maanta arkayso, aniga ayaa soo badbaadiyay, saan doonaanan u soo badbaadiyay. Allahumma ilaahay ma wuxuu u sakhray ma safar agmaraya ayuu ilaahay subhanahu wa ta'ala ku soo aadiyay ma intuu gacantiisa awoodda la ku qaaday iyo maxaa la dhahaa awoodihiisa
وبني آدم كإيو عندنا وسن كل مذوبين أيو يسقر هير دحجيي سو دونه أيو يلا يفعل ما يشاء وح الله وحو دونه أيو صمين يا رب سبحانه وتعالى أودي سنة أو ربه أيو تكرف ليا أود كسته قف كسته أود إسبده أما مدحوينه هذا رئيس الوزراء هذا محل تهلية عيدا هذا من كسته أودي سكت تكرف له وحوق استعماله أود وأي كلام ما تلك رب سبحانه وتعالى أودي سمرنا إن الأماته وممنوع كذب وحو كوري نينك سدا أنكني ويه saan doona ayaana yeela haddana maantana anaa ku amrey ka soo qaad nafta marka taas waxay noo cadaynaysaa runtii alle subxaanahu wa tacaala qofka uu duruuf dushiisa uu ka muujiyey ee baahi asbaab baahiyeed ay ka muuqato in uusan baahidaas uusan u dhimanayn dadkeenii hore ee xurmada iyo wanaagga iyo maxaa la caqiidada wanaagsan runtii ku sifoobay ayaa waxay dhihi jireen qofku kolku geeriyoon haya ama noloshiisu ay si loo malaynaya inay naftu ay xuntahay ku daba yartahay ayaa waxay dhihi jireen naftiisa iyo naftiisa iyo teeno alla way u siman tahay laakiin hebel waa uu maxaa la dhahaa wajilacsan yahay ama waliita waa hadal ixtiraam ku dhahan yahay sababtoo waxay og yihiin adigan caafimaadka qaba ee dibid dhisan haya ee maxaa la dhahaa waxa doonto sameeyay xumaanta falay wax walba sameeynaya iyo ka naftu ay ku daba yartahay ee qaar soo qaboojisay inay alla agtiisa u siman yihiin marka haddii aad aragto qof ama baahi ka muuqato ama duruuf ka muuqato ha uu dayrinin oo ha dhihin maxaa la dhahaa bis weeye kan weydaysay ee waxaad ahdaa الله أيه سبحانه وتعالى أودي سو بندقن تهاي الله سودونه أيو كيلا لكن ودفرحون هاي أما وتاج درين هاي سيدا وهذا الاحترام كله هاي هذا قصة إنه أنت سكوت هاي سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سبسكرايب لايك شير يا كومنتي هاي نقول له بنا لنا صعدة قصة إن كان ضم إن شاء الله تعالى